su'aashani waxay ku leedahay maxaa la kala yiraahdaa guntinta iyo gabaatiga wala guursanaya macnaha weeye maalinta la doonayo aad u jeedaa ina bay ka tagaysaa mar way tagaysaa macnaha oo maanta meerka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti waxaan wanaagsan idin lahaantiin badawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii su'aalaha Ramadaanta oo aynu maanta mar kale haddana dib halkii uga sii qaadaan dhigi doono iyadoo ay maalgelisay shirkadda socodka dadka iyo gaadiidka alaabaha iyo sombada markan waxaynu jecelnahay taagnaas su'aalaha maanta u gudagelin inaynu ka jawaabno su'aalihii hore qaar ka mid ah laakiin inkastoo la soo gartay waxaan halkan uga hambalyeeynaa Yaasiin Jaamac Cusmaan oo ku guuleystay abaalmarinta su'aashii ugu dambeysay ee sombada reeydi ku maqnayd su'aashani waxay ahayd mid xiiso gaar ah leh oo dadka badidoodu ay aad iyo aad isugu wada dhexlaaqeen laakiin halka qof ee kali haatee kala saaray ayuu noqday Yaasiin marka gabi u wada fiirsanay dadkii ka soo jawaabay su'aashaas waxay ahayd waxaad soo sheegaysaa in xoolaad iyo oon xoolaad in xoolaad waxa la yiraahdaa waxa neefka asalkiisa ka yimid neefka asalkiisa waxa ka yimid sida hilibka iyo caanaha laakiin oon xoolaad waxa la yiraahdaa waxa wixii ka sii farcama sida tusaale ahaan subag oo laga saaray caanaha maraqa oo laga kariyay hilibka wixii neefka toos uga soo baxay waxa ka sii baxa ayaa oon xoolaad la yiraahdaa marka waa jawaabta saxda ah sidaas ay ahayd dhinaca kale dadka qaar gaar ahaan aan u maleynayay in daadoodu aad u yar tahay oo jooga xagga TikTok ayaa waxay leeyihiin xagga af Soomaaliga haddii aan idhaahdo afka Carabiga waa af qalaad micnaha waa af qalaad haddii aan ku dhawo ajnabi anigiiba luqad kale ku hadlay laakiin af qalaad ma aha ereygu inuu khaldan yahay af qalaad waa wixii aan af Soomaali ahayn qaar baa yiri ma afkii diinteenu ku soo degtay baa af qalaad noqday marka in aqoonta la kala kororsado waa muhiim markan waxa gudagalaynaa qaybeena kale ee su'aalaha maanta waxaan u soo reysiinayaa ka qayb qaataha ugu horeeya waxa ku leeyahay soo dhawow magaca Cabdiraxmaan Maxamed aadan Cabdiraxmaan kawila shan mid dooro waxaan doortay saddex wixii doortay su'aasha saddexaad su'aashani saddexaad arrimaha bulshada iyo arrimaha caalamiga isugu jirta hay kubadda cagta ma daawataa isku fiicin laakiin xataa haddii aan daawanin waa xogta kaliya teed ka hayso kubadda cagta ma malaynayo hay waxaad sheegaysaa dalkii ugu dambeeyay ee Afrikaana ee lagu dhigay koobka adduunka lagu qabtay South Africa muxuu ahaa South Africa goorma ahayd markii la qabtay taariikhdii way ka lusantahay laakiin xagga taariikhda way ka adkayd laakiin xagga waddanka way ka fududahay waxay ahayd 2010 aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ku siinayaa abaalmarin bixinaysa sombada tiiri dhaba qorraxay sheeg jigjiga ilaahir way ku geynayaan hay Soomaaliland wajaale hargeysa shirkad loo baahan yahay way naga dhigay hotelka Awdal haddii la heedo hadoo la yiraahdo aad iyo aad baa ku salaamay markana waxaan yeerayaa ka qayb qaataha ku xiga magacaaga Cabdi Cumar kawila shan mid dooro ka dhexbood afar badood afar ka dhexbood afar ka dhexbood saddex waayay waxa dooratay su'aasha saddexaad su'aashani waa su'aal iska dhaqana arrimaha dhaqanka sidee isku tiin soo dhawow aad ba isku wanaagsantiin waxaad kala sheegaysaa maxaa la kala yiraahdaa guntinta iyo gabaatiga waa isku mid maxaa isku mid ah guntinta iyo gabaatigu man magac kaliya ku wada sheegay hadday isku mid yihiin magac kale waxay kala yihiin guntintu waxa weeyaan maalinta hore gabadha la qaado ayaa laga geynayaa gabaatiguna waa marka dambe hadda siyaro degan soo yar dhawow siyaro degan gabadha la qaadayo macnaa sidee loo qaadaya gabadha wala guursanaya macnaha weeye maalinta la doonayo aad u jeedaa ina bay ka tagaysaa mar way tagaysaa macnaha oo maanta meerka oo maalinta ay marka taa maxaa la yiraahdaa guntin baa la yiraahdaa ayanta gabadha reerka guursanayade reerka inanta ma reerka inanka alaabaha keenaya gabaatiga guntinta kuwaas keenaya
waayahay ay su'aasha waad ku guuldareysatay mar kale ayaa hadii la dhado soo raadi markan waxaan u yeedhayaa ka qayb qaataha ku xiga ee su'aashani igala qayb galaya soo dhawow magacaaga khadiija waa barnaamijkan hore ma uga qayb gashay maayi waayahay waxaad dooranaysaa 1 ilaa 5 adoo ka dhex boodaya 3 iyo 4 5 waxaad dooratay su'aasha shanaad laakiin su'aal waxa ku soo baxday sahlan aad u fudud oo diiniya ayaa bali weydii horta waxaad sheegaysaa nabiga waxa jiray sanad adeerkii iyo ay dhinteen xaaskiisii sanadka magac gaar ah buu leeyahay marka magaciisa sanadka maxaa la yiraahdaa caamil xusni ma sha Allah caamil xusni baa la yiraahdaa maxaa loogu bixiyay waayo labadiisii garab baa dhintay labadiisii garab ay ku duulay ayaa dhintay waa sanadkii murugada hadii af Soomaali la yiraahdo hayo waxa ku sinaa abaalmarin bixinayso Sombeder shirkadda socodka gaadiidka maalinta tagayso Jaaliya Hargeysa halka hotelka hawdalka soo jeedkeeda ku booqa xafiiska diilayda aad iyo aad adiga mudan aad iyo aad bay macsan tahay markana bajaajta walaaliyar dhaaf wadada wad jidka xidid magacaaga maxamed amiin waxaad doorataa 1 iyo 2 waxaad dooratay su'aasha lambar 2 su'aashani waa su'aal diiniya كودي أرمي ديتا سيسكتين والله يسوي في عندي ملالو يا ما كحمة دين مدين القرآن مدين ما في عنينا ما مركز سبب يعني مدين تودم بيدان أيوة يسوي في عن ساكر ما قرنا يا لكن معناه القرآن بن أد سودي يعني قرآن دينا قرآن تحيم حد كوكتا يعني ما قرآن هنا كويدين يحكم شرعي هنا كويدين إيه أدوي ويدي يعني أنا كويدينون مركب لا تقول اسكت دينا تدينا ويا سادوسي فكرة سويش قرآن كل حكي هذا صح قرآن هان اللي قوم ويدينه لكن قرآن كل حكي واحد يتردد مركع دينتان أين النقطة دوي دينتان لين هنا صين إلهي ويجري تدكاسي مدمنين ويدينتان هودنينا وينولي هم بيلهي إذن كان دريمين تدكاس وايو صعب مركز سويش دانس كده يو ودك له خير كمان مالنا يا ودك له خير ودك له خير كا صح كل دتك له خير كهاي كمديهن لكيسه waa la sii cayimaya dad gaar ah ayaa loo jeedaa way aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga hore wadgo maayo hore wax ugu maqay way su'aal wax ku weydiinaya ka faa'iideysiya halkan sidan u jeedso dhaqanka wax ma ka taqaanaa dhaqanka Soomaalida dhaqanka wax ma ka taqaanaa dhaqanka Soomaalida dhaqanka caadiga ah tusaale ahaan arooska oo kale marka la isku guursanayo يا هاي كنتين تيجي جبالتك بحالك على هذا نور دقها هم فعلية واحد كليه ورا راس ما نتجي وري راس مقالة مسكوك بادي كم مقالة ما تكت وين تريها مركات تكتو ولي ما ركت يدو قبل على بحنا قبل جوات تطوان خنا لسيات وي طبعا خنا يا لسيات وي سمع ما حد قلت هذا ما كنت أفهم كلهم بتكتي ما يتجي قبل جوال عكتير تك راس كسر قريب كلا لسيات سمع وعين كوي ويه قنتيني جبات مركب حكلي لما تبغى لك الشيء يا قبل جوال عكتها لسيسين أيوه أيه كنتين تنوع حويان ومهرين تلاتريه كمان يا ومهر كوي منا صح بس واشان إلا وضع الصحة اللي بهيه إنك استطيع طيب هالسؤال دويسي أتبادل مع الصنطاي حاجة دين عم سلام طيب بحية دين المركن هدية سؤال شو كقولي ستة أبغى المريخ قالية ثانية صح وبحين أساس شركة السومبدر وأنا سؤال كفايديسيا سؤال شو سؤال ديني يا سؤال الديني واحد كله هاي واحد شريطة أو هي يدي المتقالة مركز دينتان يعني أو ديننا ويدينتان وأيام يديننا وينوليهن إذن كانوا ترسلين تدكاسي وعيو وادتك شهيدة وين يا وادتك شهيدة وين وادتك شهادة ده ما شاء الله أودنتي في سبيل الله أديات بعد ما تصنتهاي المركز واحد قصينا يا بالمرة بحنا سنبدر سؤال مهارات مقشة هي سفي عوايد تدك الشهادة ده محل يديها ودنينا وردنتان لكن إلهي يكتيسه يا أي شيء قال أديات بعد ما تصنتهاي هراي موقع بشيء برنامج أي كي أدبكوا سلامة يا مركنا وحنا نسوي رجيا الحق أصحاب تبرها بالشدة واحد ما تني لا هاي كزوج جواب سواشن
kuna guulaysta abaalmarintan meel kastoo aad joogtaan su'aashani waxay ku leedahay maxaa la kala yiraahdaa guntinta iyo gabaatiga barnaamijka waxa soo saaray Siraaji waxaana maalgeliyay Sombeder waxaana idinla socodsiinay anigoo Ibraahim Suxufiya taliye dib u kulmi doono sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh